وقوبته وقرحة كدعي ciidamada ayaa u gurmanaya dadka waxyeelada ay soo gaartay waa hoteelka Biza ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee gaashaan ayaa gudaha u galay ayagoo ilaa xalay ku ilaalinaya maleeshiyaadka argagixisada halkan weerar ku soo qaaday hadda waa la safgareeyay halkan waxaana ka socday howlgal qorsheysan oo ilaa xalay ay sameynayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaan afurka kadib kooxda dhagarqabayaasha al-shabaab ugus halkan dadka ayaa ku afuray waxaa yaala timirtii waxaa yaala biisadii waxaa yaala cabitaankii dadkan way soomanayeen halkan ayay ku sanayeen ku asriixayeen laakiin kooxda shahaadada dirirka al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday iyadoo ku xasuuqday halkan dad gaaraya ilaa 19 qof oo dad shacab ah oo soomanaa oo muslimiin ah oo waxba galabsan marka waa mid ka mid ah dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay u geysanayaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aniga group kala kor isla saarneen oo Beach House meesha ugu sareysa ku afureen ayaa waxa bilawnay inaan kala cararno darbiyada boodno ilaahay xamdigiisa waxa noo suurta gashay aniga asxaabteeda qaar kale inaan kor ka boodno oo gadaal ka baxno guri kale inaan ku socono sidaasna aan ku badbaadno qarax aad u xoogan ka bacdina waxaan noo xidhay rasaas iyo tacsiir aad u xoogan runtii jawgii wuxuu noqday jawi aad u bedelan man qiyaasti karo markii kulay waa dareemi karayaa in qaraxaas jugtiisa oo dhacay iyo xabadaha gudaha ka socda dareenay waxaana kamid ahay raggii ka badbaaday meesha ee darbiga ku ka booday والله